siyaasadda ay dhaqaalaha dunida soo dhawaada asxaabtada meel kasta joogtiin dahabka iyo shidaalkana kama marnamaatay in si qaas ah aan u falanqeyno sidaad ka warqabteenba waxaa dhacay maalintii sabtida ahayd 9 bisha in ruushka ay u dabaaldegayeen maalinta guusha waxayna kusoo dhamaatay si habsami leh wadankaasi ruushka waxa iskugu tagay dhammaan madaxda ruushka saaxiibada la ah ee ugu horeeyaan Chinaha African waxa ka socday ninka la yiraahdo Ibrahim Traore oo si aan horey loo arkin loogu soo dhaweeyay sidoo kale madaxda Brazil way joogtay halka wadanka dariska la ah ee Ukraine ay iskugu imaadeen dhammaan madaxda reer galbeedka Ingiriiska Jarmalka Faransiiska hadeen kulligood halkaas ay ku shireen waxaana jiray 3 maalin oo xabad joojin ah dhinaca kale dagaalka Pakistan iyo Hindiya u dhaxeeyay sidaan hore idin sii sheegay waa laba wadan oo ay dad badan ay ku nool yihiin oo nuclear ay ku hubeysan waqtiga ay si dagaalami karaan waa yartahay sababtoo ah halkaas waxa ku baabdaayo malaayiin qofood heshiiskaasna waa u dhacay xabad joojin ah walow aan la gaarin heshiis kama dambeys ah dhanka kale xuutiyiinta ee Mareykanka way heshiiyeen war degdeg ah oo hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in Hamas iyo Mareykanka ay heshiis toos ah ay galooyeen halka Mareykanka qaasatan Donald Trump iyo Netanyahu ay aad iskugu kacsan yihiin xiriirkana uu jaray waynu arki doonaa wixii halkaas ku soo kordho Donald Trump wuxuu ku wajahan yahay bariga dhexe midda kale ugu weyneed ayaa waxa ay tahay heshiiskii dhanka dhaqaalaha ah ayaa waqti xaadirka soo gabagabay wuxuuna ka socday wadankaasi Switzerland asmadiisa Geneva heshiiskan ayaa wuxuu hadda ku soo dhamaaday is-afgarad sida la sii shaaciyay laakiinse xogta ugu dambaysa waxa ku dhawaaqi doona Donald Trump iyo Xi Jinping madaxweynaha dalkaasi China taasi waxay ka dhigan tahay in waqti xaadirkan dahabka qaaliga ah uu hoos u soo dhaco beri dambe ma garanayo laakiinse wiilka soo socdo si fiican dahabka inuu soo daato ayaa la rajeynayaa shidaalkana sidoo kale maadaama dhaqaalaha dunida uu isfurfurayo shidaalkana inuu qaaliyo ayaa la rajeynayaa haddaba dunida wararka dunida ma la isku haleyn karo xilli kasta ay wax kasta isbedeli karaan last update-ka inta badan dadka faloogi ah qoraal ayaan u soo dhigaa last update-ka oo idin ka daba geenaya like follow ma maasantay